الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta way bishu tahay shanta bisha toddobaad 2022 waxaan joognaa xafiiska guddiga ganacsatada iyo culimada ay ku hayeen shaqada qaraan ururinta iyo taakula ururinta suuqa waaheen oo ah runta jambarka ururta ganacsiga ay goobjoog ka yihiin xubno heer qarana oo ugu horeeya gudoomiye Jamaal oo gudoomiye ururta ganacsiga ah iyo guddiga culimadii ganacsatada gudoomiye ugu horeeyo gudoomiye Farxaan Liibaan gudoomiye Ismaaciil gudoomiye ku-xigeenka Ismaaciil Cabdi Xasan Suldaan Axmed Xasan oo isaguna xubina Sheekh Cabdullaahi Baraawi oo isna xubina maanta waxaan u joognaa wareejinta taakulada iyo gurmadka ay soo fidiyeen bulshada iyo jaaliyadda ku dhaqan magaalada Birmingham ee caasimadda labaad Ingiriiska gobolka West Midlandska taakulada iyo gurmadkaas oo dhan marka dollar loo sheego $240 kalena ah marka baan loo sheeganaa £65 marka ay soo direen lacagtu intay ahayd oo kala ah ka soo ururiyeen bulshada iyo jaaliyadda Soomaaliland ee magaalada ku dhaqan iyo masaajidada magaalada Birmingham Soomaalida ku tukato dhammaantood iyo ay u tala galeen runtii gurmadka iyo taakulada intii gaadhay gubashada suuqa waaheen bishii Abriil ilaahay waxaan uga baryaynaa dadka iyo bulshada iyo ummadda soo taakulaysa walaalahooda dhibaatada gaadhay in ilaahay u barakeeyo ilaahay halkii ka soo saaray wax ka baraka badan ugu bedelo waxaan kaloo gaar ugu mahad celinayaa guddigii runtii ka soo shaqaysay ee jaaliyadda Soomaaliland ee joogta magaalada Birmingham oo dadaal badan iyo tacab badan runtii geliyay oo aad iyo aad uga mahadnaqayo oo aan raati ka ahaa runtii hawsha iyo dadaalka geliyeen waxaan doonayaa halkan inaan ku wareejiyo lacagtaas oo intaasa waxaan ku darayaa guud ahaan jaaliyadda Ingiriisku lacag badan bay soo direen oo kala duwan oo si kala duwan ay soo direen runtii markii aan Ingiriiska joognayna safiirka waxaan ka wada hadalnay in lacagaha la isu geeyo oo si guud loo soo diro si ay guddiguna u salimaan iyadoo isku dhammaystiran laakiin maanta waxaynu joognaa la wareegidda qaaraanka magaalada Birmingham ee magaalada waddanka Ingiriiska aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa guddiga oo u ducaynaynaa runtii shaqo culus ay halka ku hayaan habeen iyo maalin muddo 3 bilooda ay ka ururinayeen bulshada iyo jaaliyadaha iyo ganacsatada iyo ciddii runtii aan ahayn hay-adaha iyo dowlado ee runtii taakula iyo qaaraan keenta aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa runtii waan ku wareejinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد أنا وجودي تاكلينت ganacsatada iyo culimada suuqa waaheen waxaan maanta halkan ka gudoomeynaa lacagdan $240,000 oo uu soo gaarsiiyay Muuse Salaf wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga isla markaana xubin heer qaranka xubnihii madaxweynuhu magacaabay suuqa waaheen waxaanu lacagtaas hore ugu dhacday account-ka iyaga oo madmadba way ku jirtay waa gudoonay maantana waxaanu wasiirku noogu yimid inuu naga warqad maaragtay aan ku kala wareejino si dadkii u arkaan lacagtaas inay soo gaadho mas'uuliyadaas ay gudeen waa uga mahadnaqaynaa jaaliyadda Birmingham Somaliland ee Birmingham ku dhaqan iyo masaajidada ku yaala magaaladaasba sida maaragtay wanaaga iyo sharafta leh ee ay lacagta isugu xilqaameen ay u soo xasuusteen dhibaatadii walaalahood gaadhay suuqa waaheen lacagtaasna waxaan u ballan qaadaynaa biidmillaah albaari inaanu gaadhsiino dadkii loogu talagalay annagoo dhammaantay halkan intaanu ku joognaba labadii guddi bay joogaan oo Jamaal Cadiisna ka mid ah guddidaas uu nala joogo gudoomiye runta ganacsigana ah waa idinka gudoonay ilaahay idinkiina waa gaadhsiinaa cidii loogu talagalay wasiirka iyo wasiirka maqan oo isna Maxamed Aadan oo isna soo haleelin iyo cid walba ka qayb qaadatayna uga mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayr baanu leenahay ilaahay idinka abaalmariyo waxaan kaloo mahad celinaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga oo isaguna ku soo hawshooday oo hawshaa ka soo shaqeeyey oo halkan soo gaarsiiyey guddidaba waxaa kaloo aan u mahadnaqaynaa wasiirka dastuurka oo maanta isna hawl yeeshay sida wasiirku sheegay runtii oo isaguna qayb weyn ka soo qaatay guddida oo iyaguna qaabilay oo si wacan ula wareegay sidii hawshoodu ahayd si wacanna hawshoo wada har iyo habeenna u taagan iyagana ilaahay ka jisaasiiyo kelmadda anigu aan doonaya halkan inaan ku caawiyo waxa weeye odayaasha lacagta soo bixiya waxaa sidii berigee sanamtii u soo qaybsadeen dabeedna waan ugu mahadnaqaynaa in marmar la xasuusto oo aan la wada ilaabin waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum